Canada bal waxaana ay iiga warantay taariikhda General Maxamed Nuur Galaal oo kooban. magacayga waxaa la yiraahdaa Zainab Maxamed Nuur Galaal waxaan joogaa Canada Edmonton Alberta. waa gartay bal Zainabay si kooban taariikhda Allah u naxariistay General Maxamed Nuur Galaal in looga waran. wallahi aabbahay wuxuu ahaa nin Soomaalida aad u jecel Soomaalinimada ku weyn tahay wadaninimada ku weyn tahay wuxuu ahaa nin naxariis badan wuxuu ahaa nin dadka dulmiyo afiyo waxaan xasuustaa niman asaga mar dagaalku nagu soo qaaday gurigeena Soomaaliya oo weeraray oo Morgan ka mid yahay oo maxaa la yiraahdaa rejiimkii Siyaad Barre inuu iska wada cafiyay oo maxaa la yiraahdaa oo maxaa la oo salaamo oo relationship caadi la leeyahay marka qof waxa waaye dadkii adduunka ugu dulmiyo oo dadkii inay dilaan rabo cafiyo mar walba waa noocaas qof iska faraxsan oo weligiis iska habiyana waa oo shaacir badan aad u shaacir badan oo sadaqa badan oo dadka sadaqada siiyo oo gacan furan oo maasha Allah marka aabay intaas lagu xasuustaa Soomaalinimo wadaninimo jecel dadka inuu isku keeno jecel marka waa qof maasha Allah noociisa kala adduunka ku markay qabrigiisa khayr Allah ka siiyo rabbina ha u naxariisto marka bal waxaad iga warantaa Canada ayaad joogtaa seed ku maqashay shilkii iyo dhacdadii xanuunka badneed ee aabbo uu sababsaday waxaana soo wacay laba wiil waxa jiro eedaday dhashay wiilashaasana soo wacay oo dhahay hotelkii waxa ka socdo maxaa la dhahaa dagaalo iyo qaraxyo aabbo fiican yahay waa la hadalnay wiilasha wiil kamid ah aabahay wacay markay shabaabka soo galeen meesha wiilkii wuxuu ku yiri maxaa la yiraahdaa waa fiicanahay xaqada igu socoto ee hay soo wicin wiilka wuxuu yiri sidaas aan aamusay kabacdi aabahay dagaalkii wixii markay dhamaadeen kabacdi wiilka kale wacay oo isna eedaday dhashay wiilkaas kale markuu wuxuu yiri shabaabkii laban ka dilay afar ay ahaayeen kuwii kalena hoos isku soo qarxiyeen irida agtooda midna gudaha soo galay labana kor ay igu soo koreen iridaan u furay xabadaan haystay wan dilay markaan dilay kabacdi maxaa la yiraahdaa meeshii yaalo hadana markaasaan kula hadlayaa dawladdiina soo gashay meesha waa gartay wuxuu yiri xabada hoos ka socoto meesha oo laabiga downstairs xabada ka socoto anigana waxaan joogaa qolkii ku jira wali laakiin xoogaa meel oo gudaha balaakoonka u jeeda meesha maxaa la yiraahdaa dawladdii iyo dadkii meesha ku soo wareegsamay marka maxaa la yiraahdaa waa dawladdii soo gashay xabad qosh iqacayeereys ana kugu soo celinayo waa gartay kabacdi waxaa noogu soo xigay dawladdii oo press release bixisay oo tiri generalki waa la badbaadiyay waa fiican yahay dawladdii wixii soo afjartay oo wixii maxaa la dhahaa generalku waa la soo bixiyay waa gartay waa faraxay ilkeedana soo wacay markaas waa faraxnay alxamdulillah shabaabkii waa dhinteen dawladdii wixii waa soo afjartay aabahayna waa soo bixiyeen wiil waxaa jiray oo dawladda kamid ahaa askarta haram cadka oo irida agteeda joogay wiilkaas marka wuxuu yiri adeer ana u galaayo oo u tagaayo oo markaas ka bacdi waxa la soo ogaaday aabbo inuu wali meesha ku jiro oo dawladda aan save gareynin ka bacdi markaas wiilku wuxuu yiri adeer lama soo save gareynin wali wuu ku jiraa dawladana howlgaliyay ka wadaa wiilkii adamay inuu galo aabbo u tago waa la soo diiday wiilku wuxuu yiri aniga soo ciidanka kama mid neehi waxaan ugu tagi waayay adeerkay waa loo diiday marka waxaana loo soo sheegay meesha in qabiil lagu galay meesha waxa galay 3 nin oo mareexana iyo nin kale oo dhulbahanta meesha aabbo u galay dawladda gacanteeda ku jira marka waxa la isdhahay waa safe way soo bixinayaan wiilku wuxuu ilaa hadda ma ana fahmin anoo dawladda u shaqeeyo waxa la igu diiday in adeerkay u tago markaasaan yaabnay 7 PM aabahay okay waxa uu hadlaayay wiilkii kalanta eedaday dhashay uu la soo hadlaayay waa fiicanahay waa caafimaad qaba xabada qoshiiqa ku jirto ku hayso laakiin dawladdii ay igu wareegsan waa gartay marka anaga maadaama aabay dawladda gacantiisa u galay ee haddana been noo sheegeen waxaan maqalnay habeenkii 2 o'clock aabbo waa la dilay waa gartay marka waxaan
haddana meesha ugu haysatay oo dadkiisa inuu u galo ay u diideen in la soo badbaadiyey ay diideen waxa meesha lagu qarinayo annaga ma fahmin dowladda gacantayda aabahay ku tagay aabahay waxa loo dilay waxay ahayd farmaajo orderkan bixiyey intuu noolayna wuu ka hadlay waxa waaye wuxuu ka hadlay aabahay gacansaarka Itoobiya ay ku leedahay siyaasadda Soomaaliya oo dhaliili jiray oo ka hadli jiray farmaajona sheekadaas ma rabin marka anigu oo sheegay waxaan ku yiraahdaa aaba meeshan safe maaha isaga bax wuu diiday aabo wuxuu yiri wadanka anigu waa u soo halgamay oo soo dagaalamay wadankaygan ku dhimanaa marka waxa cajiib ah askartii daraaska dawladda qabtay inay aabahay dilaan ay haddana shabaab madaxa ka saaraan shabaab ma dilin aabahay waxa dilay dawladda askartii daraaska dawladda lahayd oo meesha xirtay ayaa dishay oo waliba oo qabaa'il ah oo wiilka markuu isku dayay adeerkay dhalay inuu galo gudaha u galo loo diiday oo liir ma gali kartid only dad group toocana gali karo oo ii sheegay 3 nin inay mareexaan ahaayeen midka kalena dhul bahanta yahay ninka booliiska xukumo xijaara marka maxaa la yiraahdaa orderkaas kuwaas bixiyeen farmaajo top order ka bixiya aabahay in la dilo marka aabahay aana qabiil number 2 loo dilay number 1 aabahay waxa loo dilay siyaasadda Itoobiya oo dhaliili jiray oo ka hadli jiray number 2 waxa loo dilay aabahay waa qabyaalad wadar siyaad bar looga aarayay wadar wax kale ay ahayd Allahu a'lam laakiin aabahay nimankaas oo gacanta u galay oo daraaska dawladda qabo aabahay dilay waagay isma dhahayn aabahay rag dawladda u shaqeeyo ama dawladda gacanteeda lagu dilaya asagoo wadanka u soo dagaalamay wax cajiib ah maskaxda galaynin waa gartay Zainab waxaad iga warantaa